after saddex maalmood ka hor ayaan gurigii ninku ku jiray inaan tagnay ninkaa oo koombo ku jira gurigoon jabinay hantidiisii iyo isagii baan soo qaaday wixii hanti dul yaallay waa intaa waa lacagta 14,000 iyo $20 afartaa moobil labadaa shandadood baasaboorkiisii dawooyinkiisii oo dhan waan soo qaaday hantida halkan ku xidhnay gudoomiyaha degmada waxa qoladii guriga degan yahay lahaabay waan soo raacnay waxaan hadhowba hantibaadaay hantida hortaan meel wada dhigno aan isla ogaano miyaan cidna gaar lagu halin aniga iyo xogayaha iyo madaxa baarista saddexdaas lacagta waan tirinay halka markaan dhigan ninkii dhakhtar qaadno dhakhtar dhigay hantidaas anaga adkay xulba wadiga gudoomiyaha sharaf bay noo tahay maanta annagoo qaran iyo qolo isku jirnaa oo ku tunsan degmada dila oo ku tunsan degmada ahaan beesha reer nuur inaan maanta abka iyo u wareejino hanti iyo walaalka iyo xanuunkiisa oo ilaahay qadar caafimaad ku siin sharaf bay noo tahay in maanta laga wareego anigoo ah gudoomiyihii degmada dila xaaladani markii ay timiday ninkaasi xanuunsanaya la soo qaaday dhakhtarkii aan geynay iyo xaaladii ilaa iyo nadaafadiisii iyo wixii soo dhan ka shaqeynay hantidiisii iyo anaga oo taliyaha saldhiga ah xogayaha degmada ah iyo anigu ayaa sugnay lacagtii iyo wixii hantidii meel baan dhignay furaha taliyaha hayay sidaas aan u ilaalinay markii dambe xaaladiisa aan la tacaalay waxaan geeyay dhakhtarka boormaan u gudbinay dhakhtarkii markaan u gudbinay dabadeed dhakhtarkii laftiisii agaasimihii dhakhtarkan la wadaagnay ninkaasi xaaladiisa wixii dhaqaale loo baahdo ninkii ilaalinayay wixii oo dhan baan sugnay taliyaha saldhiga ee degmada dila dhamaantii gudoomiyaha xogayaha marti sharafta bilayska sharafta leh ee la gudoonsiyay lacagta inta leega ninka xanuunsanaya gacanta ku dhigay abtiyaashay sharaf weyn bay noo tahay maanta waxay noqotay diri baytul aamin ma koo kale noqotay sababtoo ah ninka miskiinka ah ee gurigii ku xanuunsaday ee reer nuur gacanta u soo galay ee boorama la keenay ee nadiifiseen ee maanta 14,000 iyo $20 iyo 56 xidda laantii aad gacanta naga saarteen iyo boorsooyinkiisii iyo mobiladiisii oo shana ma laptopkiisii ku jiro sharaf weyn bay noo tahay anigana sharaf ii tahay maadaama aad abtiyitiin tolka weyna halkan hartiga ay joogana sharaf ay u tahay waan idin salaamaynaa dhawaqi meel fog baan gaarsiinaynaa madaxaad noo saarantiin awalna waa meel fiican baad nagu qornaydeen وانا idinka gudoomayna in caaqilkiisna waa kan in cashuur baa waa nin reer Argaaba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh